السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبي وناكسن داوديال كنا سو dhawaada wararkeena caawa qodobadanu ku soo qaadi doonana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay taliyaha militariga Soomaaliya General Oduwa Yusuf Raage iyo wasiir fiqi oo maanta wacd ku galay Muqdisho xilli maanta uu si rasmi ah wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Ambassador Ahmed Macali Fiqi uu ugu wareegay wasaaradda difaaca ee dowladda federaalka Soomaaliya haddaba maxay ahayd balanqaadkii yaabka lahaa ee wasiir fiqi uu sameeyay General Oduwa Yusuf Raage iyo wasiir fiqi General Oduwa oo si wada jir ah al-shabaabka ku sugan qayb ka mid ah gobolada Soomaaliya ugu qabtay muddo 60 cisho ah wacdna ku maray muddadaasi ay ku soo afjari doonaan kooxdaasi nabadiidka ee al-shabaab wararkeena ayaan caawa ku soo qaadi doonaa sidoo kale waxaan diiso gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay Somaliland oo balanqaad yaab loo sameeyay madaxweynaha Puntland Siciid Dani haddaba maxaa ka jira warka sheegaya in Somaliland ay dhisi doonto doorashada soo aadan 2026 madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani si uu u qabto talada Soomaaliya sidee arintan ay u saameyn doontaa qorshaha Somaliland ee gooni isku taaga waxaan diiso gudbin doonaa Somaliland oo muuqatay in si weyn ay ugu milmayso arrimaha gudaha Soomaaliya xilli Somaliland ay isku aragto inay tahay nidaam ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale waxaan diiso gudbin doonaa xog ku aadan isbahaysiga cusub ee Puntland iyo Somaliland ee ku wajahan doorashada Soomaaliya ee 2026 oo la kashifay wararka iyo kuwa kale oo xasaasi ah ayaanu idiin soo gudbin doonaa oo ay kamid yihiin faafaanadii ugu dambeeyay howlgalo culus oo la soo warinayay in caawa ay ka dhaceen qayb ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan deegaan hoostaga degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe warar dheeri ayaan idinkaga heynaa wararkaasi wixii nagu soo koraya daawad doontaa soo dhawaada saaxiibayaal wararkeena ayaanu caawa aan baqaadi doonaa aynu ku bilowno wararkeena caawa isla markaasina ugu horeysiino wararkii ugu dambeeyay taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya General Oduwa Yusuf Raage iyo wasiirka cusub ee wasaaradda difaaca Soomaaliya Ambassador Ahmed Macali Fiqi oo maanta wacd ku dhigtay magaalada Muqdisho xilli uu si rasmi ah xilkiisa ugu la wareegay maanta wasiirka cusub ee wasaaradda difaaca dowladda Soomaaliya Ahmed Macali Fiqi haddaba wasiir Fiqi oo maanta marka uu xilka la wareegay jeediyay khudbad cajiib ah ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo ay kamid yihiin dagaalka lagula jiro al-shabaab arrimaha inta badan keena khilaafaadka dhex mara wasiirka gaashaandhigga iyo waliba taliyaha militariga waxaana uu balanqaad cajiib u sameeyay taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya General Oduwa Yusuf Raage isagoo sheegay inuusan kula dhigi doonin xilka taliska ciidanka militariga oo uusan la soo faragashan doonin howlaha muhiimka ee militariga Soomaaliya balse uu ku garab istaagi doono dhinaca dawliga wax walba oo ay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ay u baahan yihiin hay'adaha dawliga ee dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale kuwa caalamiga haddii ay noqon lahaayeen heshiisyada muhiimka ah ee lagu garab istaagayo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya wasiir Fiqi ayaa u balan qaaday General Oduwa sidii dhici jirtay in awoodiisa lagu qabsado inuusan awoodiisa ku qabsan doonin oo howsha dagaalka kaliya uu noqon doono mid garab iyo gaashaan ugu noqda waxaana uu u balan qaaday in muddo 60 cisho ah ay wadajir u soo afjari doonaan dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab isla markaasina kooxda nabadiidka dalka oo dhan laga xureyn doono intaas kadib waxa hadalka qaatay taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya isagoo ammaan ugu qabeeyay wasiir Fiqi waxaana uu sheegay in wasiir Fiqi uu yahay nin dagaal haddana sida hadalka uu sheegay wasiir Fiqi laga dhabeyn doono oo muddadaas 60 cisho ah kooxda loo qaban doono la soo afjari doono haddaba wacadkan ay maanta ku galeen General Oduwa iyo sidoo kale wasiir Fiqi munaasabadii xil wareejinta ahayd ee uu maanta xilka kula wareegayay wasiirka cusub ee wasaaradda difaaca Soomaaliya Ambassador Ahmed Macali Fiqi ayaa waxay abuurtay guux xooggan iyadoo kooxda shabaab ay ku sugan gobolada Shabeellada Dhexe iyo waliba Hiiraan ee Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay culays xooggan soo saaray haddii uu muuqdo kooxdu inay u diyaar garoobi doonto wajh cusub oo howlgal ah isla markaasina iska gaashan doonaan wasiir Fiqi oo nin dagaal ah iyo General Oduwa oo loo balan qaaday in aan lagu faragelin doonin taliska militariga Soomaaliya haddaba daawada sidee aad u aragtaa wacadkan oo ay ku dhawaaqeen General Oduwa iyo wasiir Fiqi isla markaasina muddada 60 cisho ay ugu qabteen kooxda nabadiidka ah ee al-shabaab arrintaada hoos ayaad nagu reebi kartaa dagaalka cusub ee ay maanta ku dhawaaqeen mas'uuliyiintan taliska militariga iyo wasaaradda gaashaandhigga Fiqi sida ayuu maanta si rasmi ah ugu wareegay wasaaraddaasi hadda ayaa la ambaqaadi doona howlgallada gulufka military haddaba gor waxaan idiin soo gudbin doonaa warar la xiriira Puntland oo madaxweynaheedu Siciid Cabdullaahi Dani balanqaad culus uu ka helay madaxweyne Cirro madaxweynaha Somaliland laakiin waxa ka hormarinaya wararka la xiriira howlgal military oo aad u weyn oo caawa laga soo warinayo inuu ka dhacay meel aan sidaasi kaga fogeyn degmada Aadan Yabaal ciidamada huwanta ayaa la soo warinaya in caawa ay weerar ay ku qaadeen deegaan ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab
oo aan ka fogeen degmada Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya maqribnimadii caawa halkaasina waxaa ka dhacay dagaalada qaraar u dhexmaray ciidamada huwanta ee militariga iyo sidoo kale ciidamada macuusuliyada oo isku dhinaca dagaalkaasi oo jilbaha la isku aastay qasaare kala duwan ayaa jiro waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalku ay weheliyeen duqeymo oo ay fulinayeen ciidamada cirka ee xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan diyaaradaha dagaal ee dowladda Soomaaliya dhawaan ay soo iibsatay ee Akanji kuwaasi oo duqeymaha ee dhinaca ka fulinayay howlgalkii caawa dowladda federaalka Soomaaliya faahfaahin dhamaystiran kama aysan bixin howlgalkaasi balse war kooban oo lagu baahiyay warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in ciidanka qaranka ay guuleey ka gaareen howlgal culus oo caawa ka dhacay aaga Aadan Yabaal martay qodobkaasi ku aadan howlgalka iyo waliba warka la xiriira xil wareejinta maanta ee Muqdisho ka dhacday ballanqaadyadii ay kaga dhawaaqeen taliyooda iyo wasiir fiqi qaybtaas aragtida hoos ayaan ugu reebay ka warbixinta ku dambaysa warkeena caawa hadaan soo qabto waxaa soo baxayo warar la xiriira ballanqaad ay Somaliland gaar ahaan madaxweynaheedu Cabdiraxmaan Cirro uu sameeyay madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo la xidhiidha in Dani la dhisi doono doorashada 2026 ee Soomaaliya loona sii sameyn doono olole weyn oo Dani uu ku kasban karo arrimaha la xiriira doorashada Soomaaliya sidii loogu dooran lahaa xilka madaxtinimada ee Soomaaliya arintan oo muddooyinkii ugu dambeysay hoos u socotay isla markaasina labadii maalmood la soo dhaafay si weyn banaanka ugu soo shaxbaxday ayaa si toos ah waxa uu kashifay boqor buur madow oo markaa uu soo wakiishay madaxweynaha Somaliland Cirro waxaana uu si toos ah ugu wadaagay madaxweynaha Puntland Siciid Dani ballanqaadkaasi dhinaca Puntland boqor buur madow ayaa sacad u sheegay in shakhsi laga haboona in talada Soomaaliya uu hogaamiyo in uu gacanta hadda ku dhigay balse taas in laga fiirsan doono oo shakhsi mudan sida Dani oo kale in ay dooran doonaan ummadda Soomaaliyeed ayuu boqor buur madow yiri hadalka oo dadku siyaabooyin kala duwan u falanqeynayeen warka boqor buur madow ka soo baxay ayaa aragtiyada dadweynuhu ay ka dhiibteen marka la baahiyay siyaabooyin kala duwan lagaga hadlay dadka qaar ayaa yaab iyo amaka ku tilmaamayay 2025 Somaliland oo taageerayso musharax ay wadato isla markaasina isbahaysi la sameeysanayso si waxay kaga bedesho talada Soomaaliya lama oga waxa ay ku timaada arintan ma ajenda siyaasadeed oo ay leedahay Somaliland ba waxa ay doonaysaa in Dani marka uu fariisto kursiga looga armiyo Soomaaliya inuu ku dhawaaqo aqoonsiga Somaliland mise waxa ay Somaliland ilowday inay ahayd jamhuuriyad iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida oo meel banaanka ka taagneed arrimaha gudaha Soomaaliya oo aanan faraha la geli jirin sanadadii ugu dambeeyay ayaa ay tahay falcelinadii ugu badneed ee laga dhiibtay hadalka boqor buur madow boqor buur madow ayaa ah wakiilka madaxweyne Cirro ee sida tooska ah hadda ugu shaqeynaya Puntland arrimaha maxaabiista iyo wada hadalada isdhaafsiga arrimaha markaas xiriirka ganacsiga ee Puntland iyo Somaliland markaas uu xil saaran madaxweyne Cirro in uu warkaasi weyn ku dhawaaqo ayaa ay ahayd hadalhayntii ugu weyneed sida weyn warbaahinta u gilgishay dhowrkii saac ee la soo dhaafay hadaba maxaa ay siyaasiyiinta Somaliland qaarkood ay ku fasireen hadalka boqor buur madow dadka qaar ayaa waxa ay tilmaamayeen in 2025 Somaliland ay ku biirtay Soomaaliya uu xuqday kaarkeedii madaxweynaha Puntland Siciid Dani ajandihiisa siyaasadeed uu marsaday haddana Cirro uu gud ku riday rajadii dadka Somaliland sida ay qabaan kooxaha ka fikir duwan madaxweynaha talada haya ee Somaliland Cabdiraxmaan Cirro laakiin waxa wax la dafiri karin ah in labadaas maamul ee diriska ah ay muujiyeen niyad wanaag iyo isku furnaan iyo wax walba oo maxaabiis dhaafsi ah talabadaasina maamulka Cirro waxa uu ku macneeyay in ay ujeedadeedu ugu weyn ay tahay nabad ku wada noolaanshaha bulshooyinka diriska ah balse dadka ayaa siyaabooyin kala duwan u macneynaya hadalka markaa ka soo yeeray boqor buur madow oo dhowr dhinac taabtay ayaa loo arkaa in faawulo badan uu galay boqor buur madow isla markaasina uu ka shifay hadallo loo baahnaa in markaas laga dabaasho oo uu daboolka ka qaaday gudaana wararkeena waan ka tamid